odayaashii waxgarada ka soo jeeday beesha aadan madoobe ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay si weyn uga soo horjeesteen cali masaarka Suldaan Bakri Cabdi Shaybi oo ay sheegeen inaanay isku raacsanayn beeshaasi waxa kamid ah hadaladoodii halkan waxaan isugu nimid inaan ka hadalno Suldaan beesha aadan madoobe kamid ah oo la magacaabay hal magacaabe horaan u magacaabnay anagu waana naloo diiday waxaana loo adeegsaday dawladda aan soo wada halganay baana loo adeegsaday madaxweynaha aan dooranay baana loo adeegsaday waxaana loo adeegsaday wasaaradda arrimaha gudaha waxaana loo adeegsaday barasaabka gobolka Burco arintiisa u martay ee aan halka xadaafirtana la mariyay waa la soo magacaabay suldaan cusub waa la soo magacaabay suldaan beelo waa beelaha aadan madoobe suldaan u yahay beelo waxa weeye markay dadku fara badan yihiin saddex ardaa un baa aadan madoobe saddexda ardaa ninkii ardaagiisa suldaan ku doonanaya waa meel mar laakiin haddii dad la isku xaabiyo oo aan kun wax sheego dee wax suuroobaya maaha waxaan leenahay dawladdu aanu kula dardaarmaynaa oo sheegaynaa oo madaxweynaha iyo wixii la shaqeeyaba u sheegaynaa aadan madoobe yaanu gacanta madaxweynaha iyo inta la shaqeynaysa aanu ku weeye suldaan dhaqameed lagu shaaciyay magaalada Burco oo lagu shaaciyay 5 ardaa oo aadan madoobe ah meel walbana sticker lagu dhajiyay oranaya suldaankaas waa suldaan aadan madoobe haddaanu nahay beesha halkan fadhida oo ka tirsan beelaha aadan madoobe hore ayaa aanu u doonanay suldaan markii aanu suldaanka doonanay waa naloo diiday aadan madoobe aan noo diiday markii aadan madoobe noo diiday waa nala ashkateeyay dawladana laga ashkateeyay xafiis walba barasaabka iyo maayarka labadaba warqadaha loo dhiibay waxa la yiri ma laguma dhigi karo suldaanka laguma dhigi karo Somaliland waxa la leeyahay wax Somaliland oo lagu dhigi karo suldaankaasi ma jiro waxaan u baxnay hawd baan oo saaray baaladhay ayaan ku caleema saaray arinta caynkaas ah waxa imka la shaaciyay in suldaan aadan madoobe oo 5 ardaay ah la shaacinayo taa ma ogolin waanu ka soo horjeedaa waanu diidanahay because annaga naloo diiday haddii suldaan la siinayo cid la siinayo dee annaga naloo yeeli lahaa mar haddii naloo diiday annaguna taa waa diidnayo cid uma ogolin taasi waa taa waxaan u sheegayaa dhaqanka Somaliland odayaasha waxgaradka iyo dadka reer Somaliland ee reer Burco u badan in aanan ogolayn suldaanka 5 ardaa ee aadan madoobe lagu shaaciyay 5 ardaa oo aadan madoobena aanay jirin aadan madoobe waa 3 ardaa 3 caaqil buu leeyahay dawladda lacag ka qaata 3 caaqil ayaa aadan madoobe ardaayadoodu 3 caaqil buu ku arooraya mar haddii 3 caaqil aanu leenahay ninkii suldaan samaysanaya haddii aadan madoobe naloo diido annagu aanu u horeynay dee raaskiisa ha ku samaysto raaskiisa waa inuu ku samaystaa oo geliyaa suldaankiisa raaskiisa taasina taa weeye dhaqanka Somaliland iyo waxgaradka reer Somaliland iyo cuqaasha reer Somaliland waxaanu leenahay wixii aadan madoobe lagu kala jarjarayo rag ba aadan madoobe jarjaraye wixii lagu kala jarjarayo inaydan taageerin dawladana mid baan leeyahay dawladda reerkana waa halkii baadhay reerihii ay degtay SNM xoolahooda qabtay ragooda qabtay hubkooda qabtay weey waa reerkii baadhay deganaa way taqaanaa madaxda reer Somaliland iyo dadka maanta Somaliland u taliya baadhay uu yaqaana reerihii ku suntanaa ee ku cayroobay weey Somaliland gafka aanu ka tirsanay iyo dawladda waxa weeye way noo diiday madaxtooyadana looga soo diiday oo barasaabka Burco la soo ballamiyay oo maayarka la ballamiyay oo hudheelada Burco dawladdu ballamisay imikana way ogolaato reeraha madoobe bay u ogolaatay salaadiin inay siiso taasi waa meel ka dhac aanu ka tirsanayno dawladda annagu dawladda waa taageersanahay madaxweynaha waa taageersanahay reerku xusbiyadii uu taageersanaana uu taageersan yahay laakiin waanu ka xunnahay in reerka masiirkiisa meel lagaga dhaco waanu ka xunnahay oo annagana wixii naloo diiday rag kale la siiyo waxaan u gudbaayaa waxaan dalka u sheegayaa ku nool hadday dawlad tahay iyo hadday madax dhaqameed tahay salaadiin oqaal waxgarad xusbiyada qaranka
mid kastaba ha ahaatee waxaan u sheegaynaa ajadhaha aan ka hadlayo ajadhahaas inay fuliyaan baanu uga baahannahay sababtu waa maxay wax aanaan ogolayn oo annaga hore naloogu diiday ayaa halkan ka soo baxay oo ragshaaciyey marka hore waxaan u sheegayaa ummadda ilaahay aadan madoobe waa aadan madoobe mar labaadka waa 3 ardaa aadan madoobe 5 ardaa ma gaadho 6 ardaana ma gaadho wax ka badanna ma gaadho 3 ardaa weeye 3 ardaa inaanu aadan madoobe yahay dawladda taqaano dee 3 caaqil bay leeyahay aadan madoobe 3 iyo mushaarooyinka siiso oo la xidhiidha taasaa xaqiiqo ah ee wax aan anagu imika bilaabayno ma aha dawladda sida u taqaana aadan madoobe inuu 3 ardaa yahay halkan waxaa ka soo baxay 5 ardaa oo aadan madoobe in lagu caleema saaray nin madax dhaqameed ah oo qabiil raas ka mid ah 3 ardaa ka mid ah uu caleema saaray waxay ku caleema saareen 5 ardaa oo aadan madoobe warda caalamku waxaan u sheegaynaa 5 ardaa aadan madoobe inaanay jirinba 5 ardaa oo aadan madoobe aadan madoobe 3 ardaa yahay waxaanu kale u sheegaynaa annagu raaska aadan madoobe 3 ardaa ka mid ah oo la yidhaha Baxsanbuur ayaanu nahay suldaankan ka horeeyay ayaanu keenay oo aadan madoobe u sheegnay oo dadkaba u sheegnay oo naloo diido dawladda iyo aadan madoobe labaduba noo diideen oo dawladduna ku raacday oo aanu halkii nalagu diiday waxaanu la yaabnay oo aanaan qaadan karin dee dawladdu ma ayana aadan madoobe qaarra raacaysa qaarra ka tegaysa qaarra miyay raacday qaarra miyay ka tagtay dawladdu waxaanu u aragnaa qarankaa lagu soo siiyey qoyskoodii aan lagu soo siinay lagu soo siiyey aadan madoobe in dawladdu ay godob iyo waxaan meesha ku jirin iyo meel ka dhac annaga ay nagu meesha naga dhacayso inay ku dhaqaaqday oo ay yaanu dawladda u sheegaynaa waxaan leenahay dawladda haddii markii hore qalad arrinkaa ku gasheen dib uga laabta waayo waa mid qaldan oo aan noo diideen baa rag kala soo siiseen dee waa godob baanu halkaa u aragnaa waxaanu leenahay adduunyada aan u sheegnaa salaadiinta madaxdhaqameedka Somaliland waxa laga yaabaa in lagu marti qaaday arrinkaa waxaanu idiin sheegaynaa waa digniin inaydaan ka qayb gelin shirkaa laydinku baaqay inaanay waxba ka jirin oo mid been abuura yahay oo mid aadan madoobe aanu u dhambeey yahay oo 3 ardaa aadan madoobe aanu ahayn ninku hadduu doonayo inuu sudaa sheegto qoyskiisa haddii ha sheegto beeshu uma dhamma waa naga halkaa fadhino oo ka hadlayna uma dhamin kii hore loo diiday baa annaga ahaa ninkii doonaya ha sheegto qoyskiisa laakiin aadan madoobe ma aha aadan madoobe sidaasaanu Somaliland u sheegaynaa oo dawladda u sheegaynaa oo madax dhaqameedka la marti qaadaya u sheegaynaa oo uqaasha u sheegaynaa ujeedada isugu yimaadeen waa 3 qodob qodobka koobaad oo ah suldaan shaaciyay suldaannimadiisa oo boorarkiisa iyo arrimihiisa oo dhan ku soo dhajiyay suuqa istiikaradiisii oo waxa uu qoran iyo waxa uu yahay aan islahayn in laga hadlo oo la sheego cidda uu suldaanka u yahay iyo cidda wadata suldaanka waxa uu qoran 5 ardaa ee reer hebel ama fulaan laakiin maaha waxa weeyaan sida odayaashu sheegeen raas aadan madoobe ka mid ah baa isla gartay magac bay u bixiyeen waxa weeyaan de inay halka ku joogaan ay ku qurux badnayd laakiin ummad kale oo waxba la qabin oo bulsho badan ka kooban oo dareen kale qabta oo madax dhaqameed kale leh inay dhakada iska saaraan oo ay yiraahdaan haddaan reer hebel lahay kaasaan noo suldaana arrintaasi waa arrin waxba kama jiraana madax dhaqameedka Somaliland iyo marxaladda siyaasadda asxaabta qaranka guurtida baarlamaanka dadka casuumadda loo fidiyay waxaan u sheegaynaa inay tahay wax lagu kala qaybsan yahay ee aan lagu wada soconin wax lagu kala qaybsan yahay oo cid gaar ah wadato cidda gacan ka qaadataa waxay ka dhigan tahay inay dadkii iyadu sii kala fogeysay halka isu soo jiidi lahayd ee wixii cidda qaldan runta u sheegi lahayd madax dhaqameedku haddii xafladaha ka soo qayb galaan waxaan u aqoonsanaynaa inay burburka reeraha iyagu ka qayb qaadanayaan halkay sixi lahaayeen ee wixii qaldan sheegi lahaayeen ee oran lahaayeen dadku hay isu tanaasulaan oo dib hay isugu soo noqdaan oo gudahooda wixii ka qaldan ha saxdaan in la sii maarta la buunbuuniyo oo waxa weeyaan cidii qaldan qaladka lagu taageero arinta waanu ka soo horjeednaa
madax dhaqameedka Somaliland meelay joogaanba waxaan leenahay wax lagu wada socdo maaha wax reerkaasi u dhayay maaha waa burbur iyo fawdana soo dhex gashay waa arrin Ilaahay ka baryana inaanu maaragtay maslaxadeedii isugu noqono oo dib uga heshiino oo gudaha ka dhamaysano waxaan leenahay inaan cidriyeen soo faragelinin qodobka labaadna waxa weeye dawladdu ma aha madax dhaqameedka digreeto lagu magacaabo wasaaradaha la magacaaba iyo wasiirada laakiin madax dhaqameed lama arag la yiri waxa magacawday wasaaradda arrimaha gudaha ama wasaaradda madaxtooyada waa arrin qaranka Soomaaliland ku cusub waa arrin ceeb iyo fadeexad ku ah waxaan leenahay madax dhaqameedka reerka iska dhex doorta iyaga gudahooda waxa weeyaan markay ka shiraan ka shawraan soo dhamaysta dabeedna caleema saara laakiin madax dhaqameed la yiri Hargeysa laga soo maaragtay magacaabay oo waraaqa sita oo dadkii dhaqanka dhex imanaya iyagoo sidii wasiirada u soconaya sanadka ka hormayna arag wax dawladda Soomaaliland ceeb ku ah waa wax qarankan curdinka ee aan maaragtay adkaanin ceeb ku ah waa waxaanu cambaaraynano haddii cid gaari oo isfahamsani ay sandala doonto oo loo ogolaado waxay ku qurux badan tahay inay magaceeda ku ekaato ma aha inay dad kale oo maaragtay aan fikirka la qabin magacooda sheegtaan dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay u saxdo istiikarada ay soo qorteen ma aha beeshaas inta la sheegay kama koobna magaca la sheegay meesha ku qoran waa khalad waxaan leenahay halka ha loo saxo oo haday cid gaar ah wadato anagu cid wadato ma ogine haday cid gaar ah wadato magaca iyadu xaq u leedahay sheegato halkan waxa ka dhacday madax dhaqameed hadii alba qadarkeeda leeyahay loo dawladdu siisay suldaannimo siisay oo soo saxeeday hadii uu soo saxeexday annaga horeena loogu diiday hadiina loo diiday baaldheeyay hawd baan la qaban waxaanu kaloonahay nimankii SNM asaasay iyo hadii alba kulmiye meesha laga asaasay ayaanu nahay waxaan leeyahay halka maxkamadaha lagu martiqaaday hadii alba qadarkeeda leeyahay inaan meesha aan u dhamayn suldaannimada aan u dhamayn hadii suldaannimo doonayo waa inuu hadii reerkooda sheegtaa annaga horeena loogu diiday mar hadii horeena loogu diiday dawladdu inay naga eexato meesha ma taalo waxaan kaloo leeyahay waxa meesha ka soconaya annagu iskuma raacsanin suldaannimada suldaanka ka siinayo waxa la yiraahdaa ina barkhad ina cabdi shaybi iskuma raacsanin ka waxaan isugu raacsanayn aadan madoobe 5 ardaa ma aha waa 3 ardaa saddexdeeda qolba aqalaan kala leenahay aan kala ahaane mar haddaan isku raacsanayn dawladdu reerkooda sheegtaa Sidaam Ali Markad shabakada caalamiga ee Raasamaal magaalada Burco